Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta kusoo dhawaada. Waxaan rabaa muuqaal aad u kooban inaan idinku tusiyo sida loo sameeyo Gmail-ka, weliba qaabka ugu fudud ee aad Gmail u samayn kartid. Inta aan muuqaalka sii guda galin, waxaan kaa codsanayaa inaad channel-ka subscribe saartid. Okay, haddaad saartay ila soco marka. Marka ugu horreeya waxaad tagaysaa ama waxaad galaysaa Gmail-ka naftarkiisa. Gmail markaad gasho, hadduusan Gmail kuu samaysnayn, sidaan ayuu kusoo qabanayaa. Okay, waxaad taabanaysaa falaartaas yar. Okay, falaarta waxaan ka wadaa halkaanaad taabanaysaa. Okay, haddana dhan dheh, hore u soco. Then waxaad taabanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay add an email address. Meeshaas ay ku qoran tahay add an email address. Markaad ku dhufato sidaana kusoo baxayso, kadib haddana meesha ugu koreyso Google-ka ku dhufo. Okay, markaa meeshaan timaado, meeshaan kore uu ku leeyahay email or phone. Meeshaas waxaa isticmaala ama waxaad gelinaysaa marka aad haysato email samaysan oo markaas mobilka kuugu jirin ama telefoon cusub aad soo gadatay, waxaad rabtaa Gmail-kaaga inaad gashato, markaasaa gashan kartaa. Laakiin hadduusan kuu samaysnayn oo aad rabto hadda inaad samayso Gmail cusub, waxaad taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay create account. Meesha ay ku qoran tahay oo halkaas ayaad taabanaysaa. Okay, markaad meesha ku dhufato, wuxuu ku leeyahay 3 option oo ku siinayaa. Adiga miyaa samaysanaya, ma ilmahaaga u samaynaysaa, mise ganacsigaaga u samaynaysaa. Hadba marka midka aad u rabtid. Haddaad marka u rabtid in adiga aad samayso, adiga aad isticmaasho for myself ku dhufo. Okay, intuu ku keenayaa. Inta markuu ku keeno, marka meesha ugu horeyso waxaa ku qoraysaa first name-kaaga ku qoraysaa. Meesha labaadna waxaa ku qoraysaa surname, magacaaga labaad. Okay, tusaale waxaan leeyahay Xasan Budul. Okay, qaybta labaad ku keeno waxaa weeyaan meeshan koowaad waxaa gelinaysaa maalinka aad dhalatay dad taqaanid. Dadada aqoon tiro wan iska gali. Inta badan Soomaalidu waxay isgelisaa maalinta koowaad. Bisha inta badan Soomaalidu isticmaashana waa January. Haddaad taqaan laakiin bisha aad dhalatay gasho iyada. Okay, sanadkana da'da ama sanadka aad dhalatay iska gasho waxay ku noqoto 96 ama 90kii ama 2000 waqtiga dhalatay. Kadib meeshan hoosena waxaad gelinaysaa gender-ka aad tahay. Micnaha laba iyo dhadig waxaad tahay. Meeshan kore female haddaad dumar tahay, gabar tahay, ama haddaa wiil tahayna male. Haddaan ugu waxaan leeyahay male. Then next aad markaa intaas buuxisid next. Okay, intaan ku soo baxayso. Meeshan wuxuu kugu qoray markaa. Wuxuu ku leeyahay waxaad dooratay Gmail address-kaaga dooro. Micnaha meeshan laba option ku leedahay. Inaad labadan xaba asaga uu ku dooray midka koowaad wuxuu ku yiri budulhasan59@gmail.com. Meesha labaadna wuxuu ku yiri Xasan Budul sidii uu ku keenay laakiin 94 uu ku raacsiiyay. Ama intaas inta kasta waxaad samayn kartaa adiga samaysanaya. Magaca aad rabto inaad Gmail-ka ka dhigato adiga qoranay meeshan ugu hoose create your own Gmail address. Okay, haddaan ku dhufto qaybtan hoose. meeshaan ku soo baxayso meesha ku qorayso. Meesha waxaa ku qoraysaa magaca aad rabto inaad gashato Gmail-kaaga ama ka dhigato. Marka waxaa ogaataa inta badan magacyada hortaada la qaatay. Dad fara badan, kumanaan, millions of people aad samaysteen Gmail. So marka magacyada caadiga ah taqaanay Xasan, Axmed, Faarax, Geedi oo kaliya oo qalalan kaama yeelay. Tusaale ahaan hadda Faarax aan leeyahay, haddaan geliyo magacan hore loo qaatay qasab waay. Markaas wuxuu ku leeyahay that username is taken, waa la qaatay. So marka haddii marka aad rabto inaad samaysto waxaad leedahay magaca intaad qorto waxaad raacsiinaysaa lambar raacsiinaysaa. Tusaale hadda Faarax ayaa waxaan raacinayaa 68 inuu iga yirdoon u badan tahay. Way iga diiday kaas wali wuxuu leeyahay waa la qaatay naftarkiisa. Okay, Faarax waxaan sii raacsiinayaa haddana BB. Tusaalahan waxaan waa tusaale. Okay, kaasuu iga yeelay laakiin anigu kaas ma rabo. Kaas adigan kuugu tusinayay. Waxaan rabaa inaan qaato midka asaga uu siiyay Xasan Budul. Aan ka dhiganayaa Xasan Budul 94@gmail.com. Okay,
adigu laakiin midka aad doontida ka samaysan kartaa ama midku ku sii qaado ama mid cusub samayso adiga ku jirtaa. Then next day marka inta marka timaado password ayuu ku leeyahay geli. Marka passwordka shuruuc u degan waxay tahay waa inuu ku jiraa xaraf yar iyo xaraf weyn iyo lambar iyo karakterka calaamadaha kaleeto oo ama calaamad dollar ha noqoto ama at ha noqoto ama xidigta ama dhibic waxyaabo kale inaad geliso ayuu kaa rabaa ama slash dheh. Intaasoo nooc waa inay ku jiraan waayo passwordada jilcan kama yeelaya isagu. Soo markaa mideeda kaleeto waxaa sameysaa haddii xaraf yar intaad ku samayso passwordkaagii hadhow aa istiraahdo gasho oo xaraf weyn ka dhigto passwordka wuu kaa diidi doonaa. Marka si fiican uga taxadir passwordka ka dhiganaysid. Okay, hadda waxaan leeyahay Xasan 54 slash calaamada dollarka intaasaan ka dhiganaya inuu iga yeelayaan rajeynaya. waa kasa wuu iga yeelay wuu iga aqbalay. Okay, meeshaan waxaad ku qoraysaa nambarkaagii. Nambarkan wuxuu aad kugu fududaanayaa hadhow marka aad gashanaysid Gmail inaad magacii aad Gmail ku qoratay aa xifdisa lagama rabo. Micnaha markaan lambarka la gelinaysaa sidoo kaleeto lambarka waad ka boodi kartaa laakiin lambarka inaad ku qorto meesha aday faa'iido kugu jirtaa. Okay, hadda anigu waan ka boodaya laakiin adigu waa gelinaysaa. Markaad geliso wuxuu ku leeyahay koodka lagu soo diray geli haddana kooda ku soo dhacayo sida WhatsApp markaad sameynayso kaleeto kadib koodkii gashanaysaa horaa ka soconaysa. Hadda anigu marka waxaan leeyahay lambar gasho ma iskii baan leeyahay qaybta aan ka boodaya. Okay, hadda saanaan ku sameeyay haddaan next dhaho oo aan next sida aan taabto bimacnaa waxaa waaye Gmailkan waa ii samaysan yahay waaye. waa fahantaan fila Gmailkan waa ii samaysan yahay waaye. Wuxuu ku leeyahay review your account info, you can use this Gmail address to sign in later. hadhow waa isticmaali kartaa. Okay, next aad leedahay saasuu kugu samaysan yahay horaa u soconaysa markaa.